madaxweyne hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa luuqad adag ku weeraray madaxweynaha haatan talada haya ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xilli ay xaaladda dalka ay marayso meel halis ah. Xasan Sheekh intii uu raadin lahaa maamulada uu khilaafka kala dhaxeeyo maareyn lahaa dhaqaale xumada taala dalka wuxuu taasi beddelkeeda ku mashquulsan yahay dhismaha xisbigiisa gaarka ah isaga oo ku qasbay madaxda Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed inay xisbigiisa ku biiraan. sidoo kale xubnaha golaha wasiirada iyo maareeyaha hay'adaha dowladda ee federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu qasbayaa in ay ku biiraan xisbiga cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud. Farmaajo waxa uu ku eedeeyay Xasan Sheekh Maxamuud kow burburinta golaha wadatashiga qaranka. madaxweyne hore ee Soomaaliya waxa uu sheegay in tilaabadu Xasan Sheekh Maxamuud doonayo inuu madaxda maamulada Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay ku galaan xisbiga inay tahay mid lagu burburinayo golaha wadatashiga qaranka oo ah halka madal ee haatan lagu dheelitiro dowladda dhexe ee Soomaaliya maadaama uu baarlamaanka uu ku milmay laanta fulinta. labo xukun boobida. Farmaajo waxa uu sheegay in tilaabooyinku haatan uu qaaday madaxweyne Xasan Sheekh in ay yihiin kuwa uu ku boobayo talada dalka taasina uu sheegay inay halis ay ku tahay midnimada iyo xasiloonida Soomaaliya. saddex doorasho hal dhinac ah. madaxweyne hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay inuu Xasan Sheekh Maxamuud ku mashquulsan yahay qabshashada doorasho hal dhinac ah isagoo adeegsanaya guddi doorasho aan haysan sharciyad heshiisna lagu ahayn taasi oo uu sheegay in ay si weyn uga soo horjeedo dastuurka dalka iyo heshiisyadii hore loo gaaray. markii saddexdan qodob ee dhammaan eedaha ku xardhan warqadiisa waxa uu dhinaca kale tala siiyay Farmaajo madaxweyne Xasan Sheekh isagoo ugu baaqay in waqtiga yar ee u haray inuusan dalka u gelinin xaalada halis ah oo dhaawacda dowladnimada iyo wadajirka. wuxuuna taasi beddelkeeda kula taliyay inuu waqtiga u dhiman uu ka shaqeeyo raadinta maamulada ka maqan golaha wadatashiga qaranka iyo in uu qabto shirkii uu dhawaan u ballan qaaday si xal loogu helo mushkiladaha waaweyn ee yaalla dalka. dhinaca kale madaxweyne hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu fariin digniin ah u diray madaxda maamulada Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed Qaatumo iyo Banaadir isagoo xasuusiyay xubnahan inay mas'uuliyad ay ka saaran tahay maslaxadda guud ee dalka iyo abuurista hanaan siyaasadeed oo loo dhan yahay. wuxuu uga digay in ay ku biiraan xisbi aan ku dhisnayn sharciyad aan isla ogoleen taasi oo hadday dhacdo keeni doonta sida uu Farmaajo sheegay kala tag siyaasadeed. Farmaajo waxa uu noqday musharax ugu horeeyay oo si toos uga hadla talaabada uu qaaday madaxweyne Xasan Sheekh ee ku burburinayo golaha wadatashiga qaranka. haddaba sidee u aragtaa adiga?